waxaan anagu rabnaa insha Allah ta'ala sanadkan inuu sanadadii hore ka duunaado toddobaadka xorriyadda maalinta xorriyaddu waa maalin qof walba Soomaaliyeed ku weyn madaxda qarankana waxay nafareen madaxweynuhu ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha in la soo bandhigo wax ka duwan wixii hore haday ahaan lahayd in mashaariic la soo gudbiyo oo xukuumadda ay soo gudbiso heer federaal iyo heer maamul goboleedba mashaariicdaasna la furo xilliga toddobaadka xorriyadda insha Allah ta'ala waxaan ka wada hadlaynaa marka dadaaladii soo socday mashaariicda isxilqaan ha ahaato mashaariicda hay'adaha ama wasaaradaha kala duwan ee dawladdu ay dhisayeen ama ay faraha ka qaadeen in xilliga toddobaadka xorriyadda dhameystirkooda in la xaqiijiyo waa ogtiin anaga wasaarad ahaan wasaaradda amniga waxaan soo gudbinay mashaariic insha Allah aan rajeynayno in ka hor 26 Juun ay dhamaadaan qayb kamid ah wasaaradaha kalena sidoo kale way soo gudbiyeen hay'adaha dawladda waxaan rabnaa insha Allah ta'ala toddobaadka xorriyadda mid xiisa u leh Soomaalida dhan meel walba ay joogaan inay noqdaan waa ogtihiin oo adduunku waxa hadda aafayay COVID-19 oo wali gaab galiyay shaqadii aan wadnay oo madaxdu qaranku waxay nafareen sanad ka horba shaqadan in la bilaabay way socotay gaab yar oo soo galay oo COVID-19 ayaa haddana waxaan rabnaa insha Allah ta'ala iyadoo aan raacayna awaamirta wasaaradda caafimaadka in barnaamij qurux badan uu noqdo oo aan shacabka Soomaaliyeed gaarsiino ahmiyadda ay leedahay maalinta xorriyadda ama toddobaadka xorriyadda waa ogtihiin caruurteena Soomaaliyeed ee yaryarka ah kuma baraarugsana maalinta xorriyadda iyaga marka rabnaa in loo iftiimiyo waxa aan maanta ku raaxaysanayno in dad Soomaaliyeed ay naftooda u hureen iyaga markaasi waxa weeye maanta xorriyaddan in iyaga ay kasbadeen oo waxa weeye Allah u naxariistay intii ka soo shaqeysay SYL iyo intii kaleba marka waxaan rabnaa in ay bartaan dhaqankooda fanaaniinta iyo abwaanada barnaamijyo kala duwan ayaa live la soo gelin doonaa oo aad u qurux badan maadaama dadka aysan isku imaan karin oo cudurka dartiis laakiin waxa badan doona barnaamijyada live-ka ah madaxda qarankana insha Allah ta'ala mashaariicda ay furi doonaan oo ama heer federaal ha noqoto ama heer maamul goboleed marka toddobaad xiisa badan ayuu noqon doonaa insha Allah ta'ala intaasaan marka rabaa inaan su'aashaada jawaabteeda ku koobo wata wasiir faahfaahin lagu filan madrasiisa waxaan rabaa ugu dambeyn maalmaha toddobaadka xorriyadda dartood maxaad fadhiyana oo wasiir ahaan u diraysaa shacabka Soomaaliyeed kow waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed inay naftooda taxaddar ka sameeyaan COVID-19 oo ay raacaan awaamirta wasaaradda caafimaadka maadaama shacabkeena Soomaaliyeed aan u diirnaxayna waxaan rabnaa insha Allah ta'ala inay taxaddarka ay badiyaan fariimaha caafimaadkana mar walba ay niyadda ku haystaan midda kale wasaaradda amni ahaan waxaan leeyahay hay'adaha amniga inay la shaqeeyaan waa ogtihiin bishii Ramadaan si fiican buu Ilaahay noo soo dhaafsiiyay waxaan rabnaa marka shaqada ay shacabka la qabteen hay'adaha amniga inay si laba jibaaraan mar walba amnigu uu boqol yahay ama uu sugan yahay waxa shacabka Soomaaliyeed ku naaloonayaan waxay tahay nabad iyo horumar haday ahaan lahaayeen in mar walba ay dadku niyadooda degan tahay cadawgana jaanis uusan dadka ka dhaxelin waxaan rabnaa mar walba hay'adaha amniga inay la soo xiriiraan cid walba oo markaasi cadow ahna ay farta ku fiiqaan hay'aduhu amnigana habeen iyo maalin waxay u foojigan yihiin in amnigaasi Soomaaliyeed in shacabka loo sugo intaasaan marka rabaa inaan shacabkana ku baraarujiyo waxaan Ilaahay uga baryaynaa maalinta xorriyadda ah iyo inta ka horeysan inaan caafimaad iyo cibaadad suuban aan ku wada noolaano dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay